Soomaalidu gun weeyaan runtaan laga garaabeyne hadba geesigoodii kacay garab wagleeshaye intaan cadowba soo gaadhin bay guluf ku qaadaane walaalkiinimuu goobayo gurayo raadkiisa godka uu ku dhuntiyo kolbaan geedna qaarinayne muddo wuxuu gabraartaba marbay gacanta saaraane intay gudubu tuuraan garhkay ciidu gaaliyaane geeridiisa waa lagu farxaa kama gadoodaane intay gowracan bay gurbaan sacab garaacdaane hadba nacabgumadaya bay gacaalamoodane midkay garab ka saaraanba waa gurintirkoodii iyagaysu godiya intaa gooriyo ayaane gubaannimo nafgajaysan baan goosan karayne gunno iyo waxa lagu sabaa faraagudkoode waxba kama gargortamo gasiin ruuxu go'ayaaye gudintiyo laxdii seefta weyn qoorta lagu gooyey gahaydhiyo galool qodax labay guraada jiidhaye haddii neef la gowraco ileengeeda kama waabto gebgeblaha siyaasigana taagadiis ma dhammaane qof damiirku waa hore gubto diinta garab roori garhwaadeen kolku noo noqdee talaada noo goyo hadba gebi inaan kala dhacna nagu garweeyaane ningaatiyo nin gowrgowrayo fulaynima u gaabsan inkagabadee xaqii culimadii diinta gaaran layde gardarada kufaaradu koday garab ku siiyaane shaqsigii ka geylama sharkii jeelka geelayaane garaashada fayow iyo runtay ganaaf ku doogaane hadba waxay gardad shangabaan lagu dangaadhaye geesiyadii carbeed iyo loodku cumarba soo gaadhay iyo geeshashku cali watay gaala dabargooyey guulaystayaashii cismaan joogay garabkiisa abibakar sidiiq gaasasku geliyey duulaanka jiddigood calool bay noqdeen gabaanadoodii markii boqol gurub laga dhigay kala go'doomeene mid haddii la gowracayo oo cadowgu soo gaadho kuway gacal wadaagaan haddii lagu dhex gogoyo ficil galiba mayo ma jiro miduu galilyoone annagana gadaynala rabantaa ka guuda weyne nin kastoo iskiijiya hadday gacan togaalayne waxay damaacday gaaladu haddaan garaasha loo yeelan guuldarrada haddii aan horteed gole ka shuuronin gudashada salaadaha shantay giri ka taagnaane gudashada salaadaha shantay giri ka taagnaan waa meesha keliya maanta diinta ay kusoo ururtay masaajidku bas mashaki baa kaga jira taana in la isugu iman doono